بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامجka quraanka Ramadaanta oo loogu talagalay dhamaan umada muslimka meel kasta joogto barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Mumtaaz Miraaj Xasan maanta garabkayga waxa fadhiyo walaalkii Fuad kusoo dhawow barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم أدوان ودوها الله سنت barnaamijka waxaan ka soo gudbinaynaa Iqra College sidoo kale waxaan ugu talagalnay umada muslimka meel kasta joogto Fuad waxaan ku weydiinayaa warbixin ku saabsan magacaaga iyo sooyaalka barashada quraanka بسم الله الرحمن الرحيم marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hado dhan oo sugnaatay mar labaadka waxaan halkan ugu mahadcelinayaa hooyaday iyo aabahay iyo waalidiinteeda uga soo dadaalay khaasatan hooyo igu dhiirigelin jirtay markastana quraanka iyo dhinaca culimada aan ka garab dhawaado kuna dadaalo wixii khayran igu dhiirigelin jirtay waxaan kaloo mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo howlwadeennada barnaamijkan iyo Iqra College oo kaliibaan ardayda Iqra College kamid ahay barnaamijkana loogu talagalay Ramadaanta iyo Quraanka Kariimka ah maadaama ay tahay bisha Ramadaan bishu soo degay Quraanku sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala Quraankiisa ku yiri shahru Ramadaan alladhi unzila fiha al-Qur'an marka taariikhdeeda oo kooban haddii aan bilaabo guda galo quraanka markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay kolka laga imaado intii hingaada iyo intii basic qofka laga dhiso quraanka hortii waxaan ka bilaabay madrasada la yiraahdo Darul Qur'an ee ku taal magaalada Hargeysa waxaana macallimiintii ugu saameynta badnaa kamid ahaa macallin Cabdirashiid loo oran jiray oo quraanka intii muddo dheer noo soo dhigay iga gaarsiiyay 10 jis أنا توجه جس نكتة أو حفظا أيا كوريج مدرسة دي أنتي دم لا تنكي جسات ما نوحنا كل ما استوي مدرسة دا بكر صديق وأيضا مدرسة دار غرو حجاز كشران مع عن محمد عبد الرحمن عمر أيا قرآن كأيدمية ومدرسة دنا يسوق معمول كأها الحمد لله قرآن كأحد ما لبا سنة كهر أما صدح سنة لبا كنا سجايات وانكي قرآن كاس إلهي سبحانه وتعالى ومعجز أو قفك لبا لو غيبية قرآن كلبا لو غيبية كل كبرانا يا قيب حفظية يا قيب مركه هذا كتابك وكآخرنا وكبحية بعدما طهر مددر بقاعدة لكن تدم بقفكو السجع إسوضة ودلك يسكو حرنتين وقرآن حفظية كل أنا أردن إنه أردن كلمات القرآن كذا إنجاز ما وضحية لكن وحنا أردن كراون قرآن إلهي سبحانه وتعالى إن بدنا كم ذا وحفظ سنة أنتي كلنا ولي أرض ما هو عندك تجارب تعليمات أو إلهي مكو معنا عبد الناصر فيصل وأنا هالكم أقوم هالنقيا ونودك تصحيح قراءات منارة تشيل القرآن وعندك أنه ويكي بالله بعشرة من خميس تكلا inkastoo barnaamij Ramadaanta wado ahaa quraanka qofkii sodanka jis bisha lagu xifdiyo iyo qayb qiraa'adka iyo cardiga iyo qayb kala duwan wado marka quraankii weli uu ku dhex jiraa laakiin hadana culumtiisa fara badan oo marba mutuun kalkaad ka baxsan mutuun kale oo soo gudbaysa alxamdulillah weli waan wada quraanki ما شاء الله تبارك الله إلهي أنت أنا حفظت سنين إلهي كحفظتيسيو waxaan jeclaysan lahayn in dhagahayga nagu raaxayso aayad kamid quraanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله تبارك الله. الله كوغو أنفعو قرآنك كريم كأه مجرى فؤاد قف آد كقضية عدك مجرى قف آد دذالك أن ما تقردي ما تكقرسي. بسم الله. وحجرة علماء بضان كلي إمك الصومال هاني يرجع سبب دلنيرتو حسكو دايان تقليد كحلا داين الجود ذاله أنبا قف إنه الشيخ كليسكو يكيسين كرا وتقليدين كرا عد كيسة لكن الحمد لله إلهي بين بضن بيسيو كم تحي إنان علماء بضن أو كو الصوماليات يا عرب بانسكو داي عدد كوغا سنة دا كهر وحن قارسين شري إنان إلا 10 شيخ صاري كرا عدد كوغا لكن إمك كلا إنتان badanka waxay culimo badan bay ugu dhiiri gelisay inaan hal cod yeesho oo badanka go'aan loo bilaakiin ilaa 5 sheekh waan saari karaa daawadayaal wali bartamaha waxaan kaga jirnaa barnaamijkii quraanka iyo rabadaanta oo nagu talagalnay dhammaan ummadda muslimka meel kasta joogto fu'aad su'aasha kale ku weydiin lahaa waxay tahay maxaad kula talin lahayd dadka jecel barashada quraanka waad mahadsantahay intaas waxaan kula talin lahaa dhalinyarta دائما نقول كذا شيء بشيء رمضان بركة سنة أين تهي بشيء قرآن كسود أو أين أحاديث بدنكم قلنا النبي يوم ملك جبريل النبي عليه الصلاة والسلام إدعو لسبعين شيء قرآن كا وحن كل تلين لها وين هدي الكتاب كذا سدي له قرآن كقولي إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به الآخرين أي كتاب كإله كعسين أيو كان ذا يكون متيسنا لغو أراني قفك أهل القرآن كسيدي حديث كنبي كسوغناي اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إن قفك انتو حفتسيهون معها بدنك مفهوم كان إنك نقضي القرآن إن الله حفظي لفتقيس لكن وحان جعلان لهنا الضياء حفتزين وفلله الحمد دانا حفتين بركم إذا حداد حفتزين والتفسير كيسي معنيه سأد براتد أي مهم سما إسلية oo aad ku dhaqantid waayo aad quraantii haya hadaan ku dhaqmin waayaan daraad weyn marka xoran lahaa oo dhalinyaray aan ku wada dadaalno kitaabka quraanka xifdigiisa iyo xoojintiisa fahankiisa iyo ku dhaqankiisa adna aakhiro waxaad ku mutaysanaysaa abaal
adduunkana waayi maysid waxaad ku noolaatid nolosha ugu quruxda badan buu ilaahay ku noolaysiinaya haddaad qur-aankaaga ku xidhnaatid warwar iyo murugo iyo diiqadna ku qaban mayso haddii aad qur-aanka maadaamuu dikri la akhriyo dikriga ugu weyn yahay dikriguna uu yahay asbaabaha lagaga bixi karo murugo iyo wax badan oo jira adduunkan marka insha Allah taala waxaan kusoo koobaya un jawaabta in qur-aanku yahay nicmo weyn hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale waxaad noo akhridaa qur-aanka kariimka ah aayad ka mid ah بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي ومهدسنتهين برنامجكي قرآنكي رمضان هالكاس maanta inoogu dhamaaday maanta garabkayga waxa fadhiyay walaalkay Fuaad waqtigiisa qaaliga uu nasiiyay aad buu mahadsan yahay barnaamijka quraankii ramadaantana waxaan ugu talagalnay dhammaan ummadda muslimka meel kasta ay joogto sidoo kale barnaamijkan waxa soo tibinaya kaliya wuxuu gaar u yahay ardayda Iqra College waxaana idin socodsiinaysay anigoo Mumtaaz Miraaj Xasana waxaan idin leeyahay waa inoo barnaamijka xiga insha Allah biidhnillah